hooyada in la qalo oo urduux lagu sameeyo waxaa keeno hooyada in ilmaha lagu qalo dhowr sababood sabab ka socda dhanka ilmaha iyo sabab ka socda dhanka hooyada ilmaha badanaa waxaa ka socdo cunuga inay soo laalaasantay xariga xudunta cunuga ilmaha waxay keensadaan qaybta madaxa sida caadiga ah boqolkiiba 90 u dhaxayso way keensadaan waana sida ugu fiican ilmaha markay dhalanayaan meesha ay soo hormarsadaan inay madax noqoto marka qaar waxaa dhacda inay soo hormarsadaan xudunta cunuga markaas oo kale hooyada qalin way noqon kartaa waxaa kaloo noqon karta hooyada qalin hadii ilmaha ibida hadii ku soo foqdo kale isoo cunuga caloosh ku jiro hadii ibida ilmaha ka soo hormarto hadii hooyada ay ku dhacdo horay dhowr qalin oo kale hadii ay soo martay hadii hooyada hadii ay leedahay buro hadii ilma galeenka oo kale buro ay ku leedahay marka qaar waxaa dhacdo hooyada ilma galeenka iyadoo buro ku taalo inay uur qaado hooyada hadii ay qabto cudurada sida cudurada wadnaha ku dhaco iyo cudurada ku dhaco xinjirowga cudurka loo yaqaan thrombocytopenia waxaa lahaa waa in cudurada xinjirowga ku dhaco kale hadii hooyada ay qabto waxaa kaloo sababo foosha hooyada ku daba dheeraato waxaa kaloo sababo ilmaha oo si dadban u yaalo hadii ilmaha si dadban u jiifaan oo kale ayadana way sababtaa qalniinka marka qaarna waxaa dhacdo dad waxaa jiro qalniinka ee u tahay in macnaha loo dooro sida hooyada ugubka ah oo ilmaheeda ay keeneen dabakeenka ay yihiin oo kale ayadana waa loo dooraa sidoo kale hadii mataana iyo caruur fara badan ay wadaan ama cunug haduu cunug weyn yahay contract pelvic hadii hooyada tahay mid pelvigeeda isku soo urursan yahay dhamaan waa waxyaalo keeni karo hooyada in qalliin lagu sameeyo qalliinkana ma aha wax xun hadii marba loo arko in qalliin lagu sameyn karo hooyada way u fiican tahay mar walba markaas oo waxa waaye doorashada ugu wanaagsan ee markaas la dooran lahaa